بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Cabdifataax Maxamed Axmed waxaan ahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Nagoob halkan waxaan soo nimid shirweynihii maxkamadaha dowladdeegaanka Soomaalida ujeedada shirweynaha haddii aan ka hadlo istiraatiijiyadaha maxkamadaha iyo qorshayaasha ayaa lagu go'aamiyaa markaas runtii shirweynahan muhiimad weyn buu leeyahay nidaamka geedi socodka maxkamadaha ii sheegay in waana qorsho hadda ii sheegay hadda waa shirweynihii labaad bayaanadii uu ku qornaan jireen laakiin lama asaasin bay hadda ka hor laakiin hadda mas'uuliyiinta hadda joogta waxay ii sheegay inay bayaankii implement gareeyaan oo bayaankii ii sheegay sidoo ha u dhaadhiciyaan oo guddigii maxay shirweynaha ay sameeyaan hadda sanadkii labaad la qabto runtii inta hadda isbedel ku dhacay 7 sano isbedel salbalaaran baa lagu sameeyay maxkamadaha reform waxa ii sheegay dib u habeyn lagu sameeyay nidaamkii garsoorka hadday noqoto heerkooda aqoonta iyo qof kastaaba boos uu qalmeeyay macnaha aqoontiisa lagu saleynayo tusaale ahaan oo kale maxay hayday legal reform in la sameeyo dhammaan shuruucdii ii sheegay maxkamaduhu ku asaasnaayeen oo dhan hadduu noqdo bayaankii guddiga garsoorka hadduu noqdo bayaankii maxkamadaha lagu asaasay in re-establishment la sameeyo ama dib u aasaasid guddiga garsoorka deegaanka dib loo asaaso bayaan cusub lagu asaaso maxkamadihii dib loo asaaso haddana xeer nidaamyadii ay bayaanada sheegeen laftigooda inay maxkamadda guud diyaarso xeerkii anshaxa garsoorka diyaarso xeerkii nidaamka geedi socodka dacwadaha diyaarso dhammaan xeer nidaamyadii implementation macnaha ama implementationka ku sameeyay ama meel marinta ku sameeyay bayaanada oo dhan inay maxkamadda diyaarso runtii reform salbalaaran oo xagga sharciga iyo xagga ii sheegay human resources-ga legal reform iyo human resources reform labadaba ii sheegay wala sameeyay 7 sano hadda meel waxa laga soo qaaday hoosaban oran karnaa maxkamadaha isbedelkooda meel sarena wala gaarsiiyay hadda heer ii sheegay maxkamaduhu ay fiican yihiin ayaa la marinaya walina uu socda kulli reformku mas'uuliyiinta maxkamadda guud iyo xukuumadda ii sheegay ay wado ii sheegay reformkii qiimaanadii hore waayadii hore isbedelka hore hebel wax ka sheeg bahayd oo in la yiraahdo hebel wax ka sheeg hebel waa sidan oo ii sheegay waxaan la xiriirin qofka shaqadiisa lagu qiimeeyo oo ii sheegay iska nacayb iyo ama qof kasta qofku nacayb wax ka sheego oo qofkii garsoor badan baa xad ku mutaystay qiimeynadii hore waan garanaynaa waayadii hore garsoorayaal badan baa qiimeynta lagu xiri jiray waxa la oran jiray yaa garsoorku isma qiimeyn oo xaban lagama xirin maxaa ii sheegay ee la oran jiray waagii hore markaas ma qiimeyn ha lagu noqdo la oran jiray laakiin hadda shaqa la soo qiimeynaa maxaad qabatay weeyaan garsooraha faylka uu qoray inta fayl uu qoray sanadkan ay leeyahay tayada go'aankiisa leeyahay file audit baa la sameeyaa inta goboladii la tago wax been la iska sheegi karo ma hadda waxa san qaban la oran karo maxkamadda guddiga bay soo dirtay guddiga garsoorka deegaanka kamid ah file kasta la soo arkay garsoore kasta wax qoray la soo arkay xog bay haystaan anaa reportka soo jeedinayna reportkii aan soo jeedinayna iyo xogtii ii sheegay maxkamadda guud ay kormeer ku soo aasay ayaa la isbar bardhigay waxaan hadda anagu hadda gudoomiyaha waxaan qabtay iska oran karna ma wax la soo arkay ii sheegay weeyaan markaas runtii waxa weeyaan shaqa la soo qiimeynay hadda waagii horena waxaan shaqada la xiriiray oo ka baxsan ayaa la soo qiimeyn jiray markaa runtii aad bay fiican tahay isla xisaabtan toos ayaa jira markasta waxa jira cawashooyinka ii sheegay shacabku ay ka qaban nidaamka adeeg bixinta si toos ah qaabilnaa haddaan heer gobol nahay dabagalna waan ku sameynaa nidaamka adeeg bixintii garsoorkii iyo gudoomiyaashii inay nidaamka shacabkii si sax ugu adeegayaan taas waa joogto ta kalena haddana abiil baa jira oo lagu saxo adeegii